magacaygu waa faarax wadnada oo ka hadlaya degmada Garadag. laba arrin oo reer baan halka ka soo jeedinayaa. mar waxa weeye waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo ummadda Somaliland meel kastay joogtoba. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi halkan waxaan nahay dadweynaha ka ganacsada qaadka jiiba anigu markaan iska soo qaado waxaan sheerkiga jiraa qaadka mishaarta niman fara badan oo baryahan hadadliyey waxay u badnaayeen rag dhalinyaro ah oo aan u fahmay uun inay garan waayeen meesha qaadka laga soo iibsado oo qaadku waa ganacsi markaa ila tilmaamana ma odhan waxaan u fahmay uun inay garan waayeen meesha qaadka laga soo iibsado qaadku waa ganacsi cid ku suraakaa iyo cid hantigoosaya oo qofba gaarnihiisa u leeyahayba u leeyihiin markaa iyaga waxaan hadalkooda u fahmay uun inay garan waayeen meesha qaadka laga soo iibsado waa haddeer hadalkan dambe igu soo celiyey nin xildhibaan ah ayaa shalay hadlay oo aanu markii hore dee moodaynay xildhibaanadii dee golaha deegaanka loo doortay ninkaa waxaa uga hadlayey sidii nin dee looyar daydageed looyar oo ah ayuu hadlayey waxaan u sheegayaa maayarka degmada Garadag iyo guddoomiyaha gobolka Sanaag inay arrintaa wax ka qabtaan bulsho kicin abaabul rabshadeed iyo dhibaato ayaan anigu arrintaa u fahmay xildhibaanku waxa weeye daydigu u yahay looyar oo waxa loo qabtay looyarnimo inuu xuquuqda daydiga doono oo yidhaaho waxaa waa la xaaraantimay waxaasina waa xalaal qaad ganacsi oo horeg iska leeyahay inuu yidhaaho waa waxba ka socon maayan haddaan ummadda loo dhaxlin oo ummadda loo qaybin qaadka awowgeeda kama dhiman shaxisaaq kama dhiman biciida kama dhiman musaabkor kama dhiman وقاد حالته ما هو قاد ganacsi oo regley marka waxaan u sheegayaa mar labaad iyo mar saddexaadba guddoomiyaha degmada Garadag iyo guddoomiyaha gobolka Sanaag iyo dhammaan arrimaha amniga oo dhan inay wax ka qabtaan arrintaa ilaa xildhibaanka waxa uu ku hadlayo inay wax ka qabtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu